fadlan haddii aad nagu cusub tahay like saar page-ka share gale si ay u arkaan asxaabtaada mahadsanid. Cali Mahdi Maxamed waxa uu xilli lagu qiyaasay 1939 ku dhashay deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ee Soomaaliya. Waxbarashadiisa aasaasiga ahayd wuxuu ku qaatay magaalada Muqdisho, isagoo markii dambena waxbarasho u tagay dalka Masar. Xilligii dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxa uu xubin ka soo noqday aqalka baarlamaanka. Markii ay burburtay dowladdii dhexe sanadkii 1991 ayuu noqday madaxweynaha Soomaaliya, isagoo madaxweyne ahaa intii u dhaxaysay 26 bishii Koowaad 1991 ilaa iyo 3 bishii Koowaad 1997. Cali Mahdi waxa uu xukunka qabsaday kadib markii isbahaysi mucaarad ah oo hubeysan oo uu ku jiray xisbigiisa USC ay xilka ka tuureen madaxweynihii muddada dheer ka talinayay Soomaaliya, Alla u naxariistay Maxamed Siyaad Barre. Hase yeeshee, Cali Mahdi uma aysan suuragelin in dowladdiisu wada gaadho dhammaan gobollada Soomaaliya. Waddanka ayaana lugaha la galay dagaallo sokeeye oo sababay barakac iyo dib u dhac. Intii uu talada hayay waxaa jiray dagaallo dhexmaray ciidamada dowladda iyo kuwa daacad u ahaa Maxamed Faarax Caydiid. Shil lagu qabtay waddanka Djibouti oo lagu damacsanaa in la isugu soo dhaweeyo madaxweynaha iyo Caydiid ayaa waxaa iska diiday Genaraal Caydiid. Beesha caalamka ayaa Cali Mahdi u aqoonsatay inuu yahay madaxweynaha Soomaaliya, inkastoo go'aankaas ay siyaasiyiinta qaar ka soo horjeesteen. Dalalkii Mahdi aqoonsaday waxaa ka mid ah Djibouti, Masar, Sacuudi iyo Talyaaniga. Sanadkii 2000 waxa uu Cali Mahdi mar kale ka qayb galay shirkii magaalada Carta ee dalka Djibouti. Hase ahaatee, waxaa doorashada xilka madaxweynaha uga guuleystay Cabdiqaasim Salaad Xasan oo horay wasiirka arrimaha gudaha uga soo noqday dowladdii Siyaad Barre.